dhawaan ayaa ahayd markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe uu dhaliilo u jeediyay madaxweynaha dawladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele hadalka gudoomiyaha ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabeen qaad ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliland iyo safaaradda Jabuuti ku leedahay Soomaaliland gaar ahaan fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo kamid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland ayaa sheegay inuu xaal ka siinayo hadalkaasi ka soo yeedhay injineer Faysal Cali Waraabe madaxweynaha dawladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Xayde boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow ayaa sheegay inuu ku hadlayo afka dhaqanka Soomaaliland isagoo sheegay in dhaqan soo jireen uu ka dhaxeeyo dalalka Jabuuti iyo Soomaaliland almahan soo noqnoqonay in badan oo horena soo noqnoqday arrinkaas oo dhaqan ahaan anigu maadaama aan raggii dhaqanka ahay salaadiintii dhaqanka ahay arrinkaas oo hadii aan la leeyahay in badan inuu ku soo noqnoqday aflagaadadiisu rag waaweyn ama siyaasiyiin ama rag dhaqani ay kaga hadleen waxa weeye waa qadiyadii hadda gudoomiyaha xisbiga UCID iyo rag kale oo xisbiga UCID ka tirsan iyo rag xildhibaanahi si aflagaada ah oo qaawan ay u geysteen madaxweynaha Jabuuti iyo ummadda Jabuuti oo hoggaanka u yahay iyo shacbiga Jabuuti arrinkaas oo waliba haddana wax loogu dhimayay shakhsiyaad ummadda tan ka dhashay oo hadii aan la leeyahay ixtiraam ku leh oo magac ku leh oo xushmad iyo ixtiraam ka mudan ummadda tan in si joogto ah marka la damco in Jabuuti wax laga sheego oo kale marwada madaxweynaha Khadra Xayde oo dadkan ka dhalatay oo sharaf leh oo aad iyo aad dadkan u qadarisa iyo odageeda madaxweynuhu in si tudaala la'aan wax looga sheego runtii waxa weeyaan arrinka markaan ka hadlo sixitaan waayo Faysal Cali Waraabe wuxuu ka soo jeedaa qoys aad iyo aad u qiimo badan marka hore waa nin reer guuleeda saldanadii isaaq ugu sharafta badnayd ayuu ka soo jeedaa aabihina jiif caaqil weeye inuu dhaqanka ilaaliyo markasta uu hadlayo oo waxa weeyaan gabdhaha iyo dadka xurmadayna ku leh inuu aad u ilaaliyo way fiicnaan lahayd marka hore waxaan raali gelin iyo xaal dhaqan oo wanaagsan oo suuban aan doonayo inaan siiyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele waxa lagu tilmaamay nin ummadda tan Soomaaliyeed cadow ah waxa lagu tilmaamay nin hadii aan la leeyahay Soomaaliland dib ku haya waxa lagu tilmaamay nin Soomaaliland Soomaaliya uga exda arrinka waxa weeyaan runtii raali gelin ayaanu aad iyo aad uga bixinaynaa Ismaaciil Cumar Geele hadduu walaalaha Soomaaliyeed wax taro Soomaaliland buu wax taray Soomaaliya oo dhan buu wax taray dabcan Soomaaliland waxyaalo fara badan oo hiila oo wanaaga oo sharafa ayuu u galay waa nin biyo madaadsha waa nin naga mudan ixtiraam waa nin Soomaaliya markii godka ku dhacday madaxweynaha qura ee inta Soomaaliga ku hadasha madaxweyne la ictiraafsan yahay gurmad badan buu sameeyay Soomaaliya wax badan buu isugu dayay mar walba wuxuu naga badanayay ixtiraam iyo sharaf naga badanayay annaga ka beel ahaan ka dal ahaan wanaag badan baan u tirayna waxaan aad iyo aad uga xumahay gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe aan ixtiraam badan u hayo oo aan ragga waliba taageero ku jira waxaan aad uga xumahay inuu gabdhaha wax ka sheego oo gabadh ummadan ka dhalatay Khadra Xayde oo kale inuu wax ka sheego kuwa la midka waxa weeyaan dadka dooranaya dadka hadii aan la leeyahay codka uu ka sugayana gabdhaha ugu badan waxaan la raali gelin baan arrinka ka bixinaya gudoomiyaha aan ragga taageero ku jirayna waxa leeyahay arrinkaasi yaanu ka leexan inuu carabkaagu dalab yeelan mar walba waxaan kale oo oran lahaa arrimaha baasaboorka aad iyo aad waxaan uga xumahay in lagu aflagaadeeyo Ismaaciil Cumar Geele Soomaaliland markii baasaboorkii Soomaaliya shaqayn waayay Soomaaliland baasaboorkeedu aan ictiraaf hayn qof kasto xanuunsanaya si gurgurashaaba loogu tagaa baasaboorku ku tago ee dhaqaatiirta ku taga ardada scholarship ka hesha baasaboorraday ku tagaan waa baasaboorka Jabuuti weeye wana mid aanu leenahay wana mid Soomaaliyeed wana mid hadii aan la weli ihaana aan nagu ahayn inaanu qaadano oo dadku aqbalo anigu baasaboor Soomaaliya Jabuuti malihi umana doonan cidna uga maan doonin laakiin wuu ku amaanay maanta dadkii dhibaataysnaa ee baasaboorka uu waxtarka uga dhigay in laga shaasheeyo Faysal Cali Waraabe baasaboor filaan haysto
inuu dadka baasaboorka Jabuuti qaata ku ceebeeyo isagoo baasaboor ajnabi haysta oo siyaasi ah aad iyo aad baan arrinkaas uga xunnahay waxaan leeyahay arkaas waa ku meel ku dhac madaxweynahana waa ku meel ku dhac waxaan aad iyo aad uga xumahay oo aan aad iyo aad uga xumahay mar walba inuu soo noqnoqoto aflagaado qoyska iyo dhaqanka iyo xeerka iyo wanaaggu naga dhaxayo mar walba ay soo noqoto horaan uga hadlay Ismaaciil Cumar Geelle markuu inantiisa bixinayay diyaarad khaas ah laba diyaaradood buu soo diray abtiyadeed ha loo yeedho ninkii bixinayay ee salaadiinta ugu weynaa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali baa suldaankayga guud buu ahaa waana la ku ixtiraamay habar jecel ayaa bixisay Suldaan Cabdullaahi baa bixiyay laygama laha khadraxayd may oran waa inaan Sacad Muuse hooyadeed tahay abtigeeda ugu dhowbaanaha maantana gacanta gaadhay ee foolxumada leh maadaama aanu gabdhihiisa Ismaaciil bixinay maadaama hadii albalii ehelnimadeedu uu qirsan yahay maadaama aanu dad ehelanahay gacanta u horeysa ee foolxumada ay ku soo baxday inaanu marino annagu ka beer ahaan annagu gabdhaha ragga naga qaba ya aad iyo aad baanu ixtiraamnaa beeraha Subeera wala gabdhahoodu waxay nasiib u yeesheen in madaxweynayaashu guursadaan Axmed Siilaan yaa guursaday Muuse Biixi baa qaba madaxweyne Faroola qaba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle qaba ya haddaanay cimaamadoodu difaaci karayn gabdhuhu qiimay leeyihiin sharaf bay leeyihiin ma fahmay inaan anagu difaacna anaga cid u xigna xaq baan u leenahay raali gelin ma ka bixayna wixii gabdhaha loo geystay aad iyo aadna waan uga xunnahay arrinka safiirka Jabuuti ma aha inaan jaariyada oo Soomaaliland joogta oo ka shaqaysata waa diblomaasi dawlad buu joogaa xaq buu leeyahay dawladdiisa wixii ku xun inuu ka difaaco safiirka Soomaaliland ee Jabuuti jooga ma aha jaariyad reer la joogtay diblomaasiyad buu fadhiyaa arrimaha diblomaasiyadda wasaaradda khaarijiga oo xisaaran in qof intuu iska hadlayo yiraahdo safiirka Soomaaliland Afrika saac joogaha lagu eriyo oo caadifad inamada reer Facebook ay u soo dhigaan ay kaga hadlaan waa arrin dhaqanka siyaasadda ku xun Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliland wuu sharfay baasaboorkeedu hirgeliyay safaaradii ugu horeysay iyadaan la ixtiraafsanayn uu siiyay xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadda meelaha qura ee nuurku Soomaaliland uga baxay weey in la shaasheeyo in la aflagaadeeyo waa meel ka dhac weeyaan arrinka xaal baan ka bixinaynaa arrinka waxaan leenahay annaga ayaa madaxii dhaqanka salaadiinta Soomaaliland afkoodii aanu ku hadlaya aad iyo aad baan uga xumaa boqor Ismaan Maxamuud magacayga waa Luqmaan Maxamed bulsho ka socda Faysal Caraawi wuxuu dul istaagay arrinta aqoonsiga Soomaaliland oo uu sheegay in Jabuuti diidan tahay adoo arrinta ma la qabtay mise lama qabtid absolutely lama qabo aqoonsiga waxa ka mid ah ninku Ismaaciil Cumar Geelle adduunka oo dhan waxaan qabaa inaanay dawladaha inuu ku dhowdhowi aanay ictiraafin baasaboorkeena xafiis baynu ku leenahay waa meeshii haddii albalay danaheena siyaasiga baynu ka fushanaa wuxuu inoo ogolaaday inaynu ka fushano wuxuu inoo ogolaaday baasaboorkeena inaynu ku tagno waxaynu meesha qulay baasaboorka qulay shambada fiisaha Jabuuti ku dhaca uu ku dhaca ganacsatadeennii buu soo dhaweeyay daaraha ugu waaweyn dahabshiil iyo ragga aanu ku faano ayuu dhulkii free u siiyay aanu ka iibin waa ixtiraaf weeye waa soo dhaweyn weeye waa ixtiraam weeye lama qabno Soomaaliya markuu wax taro inuu Soomaaliland la dagaalamay maaha waxtarka uu Soomaaliya u geystaa waa mid Soomaaliland ay waraabaan meetala madax dhaqameedkiisii baana arrimaha siyaasadda inuu ka hadlo waaga inuu aflagaadeeyo ya dhaqanka iyo arrimihiisa annaga waxa weeyaan salaadiintii Soomaaliland markay tagto shacbiga Soomaaliland markuu tago Ismaaciil ixtiraamku u sameeyo in lagu ceebeeyo makiyo Faysal anagu saaxiib baan nahay wixii siyaasadda daliil ka hadlay waa gaar laakiin ninkii ictiraaf Soomaaliland uu kordhin lahaa weeye ninkii uu dooni lahaa weeye inuu inta yar ay haysato kala dagaalamo waa ka soo horjeednaa inuu hadii albalay arrimaha dhaqanka farageliyo oo marwooyinka wax ka sheego oo hadii albalay gabdhaha wax qaban laga sheego arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u fool weeye Luqmaan Maxamed Faarax Bulsho TV Hargeysa